بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ودرسيني تفسير كها جزء عام نقول لقلي رمضان كا ودرسي سجالات وحنوكو قادم دونا صدح سورات سورة البلد iyo suuratu shamsi iyo suuratu leyl dhammaantood saddexda suuradoodba waa suurado maki ah marxaladii maka ay soo degeen mowduucyo kala duwanna way ka hadlayaan laakiin asaasiyaadka masaa-isha ay ka hadlayaani waa kuwii ay ka hadli jireen suuradaha makiga ah intooduba waxay ku bilaabanayaan dhaar uu ilaahay dhaaranaya tabaaraka wa tacaala mar isagaa isku dhaaranaya mar wuxuu ku dhaaranaya makhluuqaadkiisa qaar ka mida saan horey usoo sheegnayna allah tabaaraka wa tacaala isaguna uu isku dhaaran makhluuqiisana waa ku dhaaran sida qur-aanka aynu ku aragnay laakiin makhluuqu iyagu ilaahay keliya unbay ku dhaaran karaan سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم الله وحيد تبارك وتعالى لا أقسم وأن دارا بهذا البلد بلد كان كدارا وأنت أذيق النبي محمد حل كحلالاتهي بهذا البلد بلد كان حديث ووالد بان كدارنا يا مد وحدلي وماكي ولد ودلي intaasaan ku dhaartay laqad khalaqnaa xaqiiqe waan abuurnay al-insaana insaankii baan abuurnay fii kabadin beer xanuun dhexdiisaan ku abuurnay ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa insaankii allan yaqdira inuusan kari karin oo awoodi karin calayhi korkiisa axadun cidina waxay la tahay inaysan cidina awood u lahayn yaquulu wuxuu leeyahay isagoo faanaya ahlagtu waan baabi'iye waan halaagay maalan xoolo lubadan oo fara badan ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lam yarahu inaysan arkaynin axadun cidina inaysan arkaynin inaan lala soconin miyuu moodayaa alla tabaaraka wa tacaala wuxuu ku dhaartay beledku waa maka balad alamiin sida inoo soo suuratu tiin ilahay dhihi doono wahada albalad alamiin beledku waa maka waa dhulka ilaahay tabaaraka wa tacaala meesha ugu khayr badan uguna fadli badan ayuu ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala sharafteeda ayuu ugu dhaartay wa anta xillun bihada albaladi macaani ilaa saddex bay mufasiriintu ku fasiraan wa anta xillun mid degan baa tahay waa la dhahaa oo deganaanshaha nebigu sal alla alay wasalam oo khayru khalqi illaahi ah ayaa maka sharaf u siyaadinaya macnaha ay mufasiriintu uga badan yihiin waliba mufasiriintii salafka wuxuu yahay in la yidhaahdo wa anta xillun dhaartii baa dhaartii oo socotaa lasoo dhexgeliyay hadalkan wa anta xillun mid xalaala tahay nebi maxamed sal alla alay wasalam oo macnaha xalaal ay u tahay inuu maka dhexdiisa ku dagaalamo maka dhexdeeda ku dagaalamo muxuu ahay dadka qaarkood ku laayo ku dilo gaaladii maalan qaarku ku laayay nebigu sal alla alay wasalam marka waa bishaaro oo waxay u bishaaraynaysaa ilaan markay soo degaysaa ayaddani maka la joogaa nebiguna sal alla alay wasalam magaalada maka wuxuu furan doonaa yacni soo hijradii kadib 8 sano sanadkii 8aad hijraduu furan doonaa marka bishaaray ka dhigan tahay yacni waxa way beledkani xalaal buu ku noqon doonaa inaad ku dagaalanto xadiidka waxaa ku tusay nebigeenu yidhi sal alla alay wasalam maka waa beled ilaahay xarimay maalintuu samaawaadka iyo dhulalka abuuray buu xarimay cidna uma bannaanaanin inuu ku dagaalamo ilaa anigoo saacad la ii banneeyey mooyaane kadibna xurmadeedii bay ku soo noqotay marka wa anta xillun xalaal baa tahayoo wixii aad ku samaynayso oo horay dadka loogu diiday adiga waa kuu bannaan tahay waay bi hada albalad macnahaasay u badan yihiin mufasiriinta salafka wa waalidin wamaa walada mid wax dhalay iyo kala dhalay yaa laga wadaa mufasiriinta salafku waxay u badan yihiin in la yidhaahdo waalidku waa aadam wamaa waladana waa caruurtiisi
sidaa in la yidhaahday u badan yihiin qaarna waxay leeyihin maya wax kasta oo wax dhalaa iyo wax kastoo la dhalaa soo gelaya oo waa caam ayib intaasuu rabbi ku dhaartay tabaaraka watacaala wuxuu ku dhaaranayaa insaanka inuu abuuray xaqiiqee fii kabadin inuu ku abuuray kabadka waxaa la yidhaahdaa waa mashaqada yacni hawsha adag shaqo adag oo beer xanuun leh asalka kabadka waxaa laga keenay beer xanuunka shaqada adag ee ruuxa beerka xanuujisa ee ku rafaada ee ku silco ayaa kabadka la yidhaahdaa marka waxaa laga wadaa adduunkan ruuxa intuu joogo wuxuu ku jiraa mukaabada mashaqo uun inuu waajaho oo uu hawl adag ku jiro oo shaqo adag ku jiro oo maraaxil adag maro hawshaasuuna ku jirayaa bini aadamku ilaa maalinkuu ku soo biiray adduunka ilaa intuu ka tegayo markuu ka taga kadib ayuu marka mukaabadada iyo rafaadka iyo beer xanuunka ama wuu ka nasan oo waa mu'minkii markuu dhintuu nasanayaa ama waa gaalkii oo markaasi hawshii adduunyada ku haysatay mid ka daran baa markaa bilaabaysa oo qabrigii iyo cadaabkiisii iyo aakhare iyo ilaa uu midda ugu dambaysa meesha ugu dambaysa ku taga macnaha sidaas weeyaan marka waa hawshaas adaga bini aadamku uu adduunka ku maraya way macnaha waa mukaabadada iyo shaqadaas adag ee adduunka uu maraya way kadibna Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu la hadlay ibni aadamka qaar moodaya inaan awoodba loo lahayn xogaa markuu intuu bini aadamku wax isbido oo xoog yeesho awood yeesho wuxuu isleeyahay yaa ku kari karaba yaa wax kaa qaban kara ayib ma wuxuu moodayaa inaysan cidina kari karayn markaasuu wuxuu leeyahay haddana faanaya xoolo badan baan baabi'iyey xoolo badan baan halaagay intaasaan bixiyey taasuu ku fataalay waxaasaan ku sameeyey waa faanaya ma wuxuu u malaynayaa inayna cidina arkaynin markuu xoolaha saa ugu ciyaarayo oo saa u bixinayo oo muxuu ahaay ma wuxuu moodayaa inaan lalaba soconinba insaankii ayib laa uqsimu waan dhaaranayaa bihada albaladi beledkan aan ku dhaaran oo maka ah wa anta adiguna nebi maxamedow xillun baa tahay mid xalaal ah bihada albaladi beledkan dhexdiisoo waa laguu xalaaleeyey wixii aad ku samaynayso dagaal iyo wixii la mid ah wa waalidin mid wax dhalay baan ku dhaartay wamaa walada kii uu dhalay iyo caruurtiisii wey ubadkii laqad khalaqnaa xaqiiqa waan abuurnay alinsaana insaankii fii kabadin hawl adag dhexdeedaan ku abuurnay ama beer xanuun shaqo adag oo shaqo oo beer xanuun ah waa adduunyadii iyo hawlaheedii waay waxa la leeyahay laga cabiray sees laga cabiray macnaha ayib ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lan yaqdira inuusan kari karin calayhi korkiisa ama yani in la soo celiyo dib loo soo nooleeyo ma inaan la kari karin buu moodayaa oo ina cidina awoodi karin calayhi korkiisa axadun cidina yaquulu wuxuu leeyahay ahlagtu waa say dhihi jireenoo way faani jireen carabtu xoolaha ay bixiyaanoo qaar khamro ku cabaanoo qaar ay bixiyaanoo qaar ay ku dagaalamaan waxaanay ku faani jireen yaquulu wuxuu leeyahay ahlagtu waan baabi'iyey maalan xoolo lubadan oo fara badan ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lam yarahu inuusan arkaynin axadun cidina inayna cidina arkaynin miyuu moodaya oo lala soconin oo looga daba imaan lala xisaabtami doonin alam najcal miyaanaa yeelin lahu isaga miyaanaa u yeelin caynayni laba indhood walisaanan iyo carab washafatayni iyo laba bishimood wahadaynaahu soo maanaan u cadaynin annajdayni labadii dariiqee caddaa soo maanaan u kala cadayninoo maanaa u kala qeexin falaqtaxama marka muu isku xambaaro muu isku qaado falaqtaxama muu muxuu ahaaye iskumuusan qaadin waaye iskumuusan xambaarin muusan jiidhin alcaqabata jiirtii muusan jiidhin wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey malcaqabatu jiirtu waxay tahay fakku raqabatin waa qoor xoraynteed aw amase icaamun waa quudin fii yowmin maalin dhexdii la quudiyo maalinkaasoo dii masqabatin baahi iyo gaajo daran u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo agoonkaasoo daa maqrabatin qaraabanimo iyo xigtanimo u saaxiiba aw amase miskiinan miskiin la quudiyo miskiinkaasoo daa matrabatin caradhac u saaxiiba faqriga iyo gaajadu ay dhulka ku ridayo carada yaalla sidaas way macnaha alam najcal lahu caynayni macnaheedu waxa weeye seebuu ugu malaynayaa in aan muxuu ahaayey aan cidina awoodi karin
seebu ugu malaynayaa inayna cidina arkaynin soo Allah tabaaraka wa tacaala intan umuusan samaynin alam naj'al lahu aynayn soomana laba indhood u yeelin oo wax ku arko oo macnaha wax weeyaan wax ku kala arko carab soomana u yeelin uu ku hadlo oo waxa qalbigiisa ku jira uu ku cabiro ku cadaysto bishimahana wax weeyaan hadalkii bay u kaalmeynayaan cunudii iyo hadalkii iyo yaani wax manfaacad badan buu isticmaalaya soomana sida quruxda badan u abuurin waay xubnihiisi qaar kamida oo muhiim ah ayaa la soo qaatay markii sida loo abuuray kadib haddana soo labadii jidmaana u cadeyn wahadaynaahu najdaynka waxa la yiraahdaa an-najdi waa dariiq cad waay labadii dariiqi cadda soomaanan u kala cadeynino waa dariiqi khayrka iyo midkii sharka dariiqaas yani waxa lagu cadeeyay ilaahay tabaaraka wa tacaala kutubtu soo dajiyay iyo rusushu soo diray waa lagu kala qeexay waxa lagu yiri dariiqna wakaaso naar buu ku dhamaada dariiqna wakaasi jannu ku dhamaada dariiq ilaahay baa yani kuugu cadhoonaya dariiqna ilaahay baa raali kaaga noqonaya labadii dariiq markay kala cad yihiin ilaahay wuxuu ku cadeeyay kutubta uu soo dajiyay ee rususha u soo dhiibay soo labadii dariiq maana u cadeyn hadii sida loo abuuray labadii dariiqna loo cadeeyay waajibkiisu yahay muxuu yahay marka maxaa munaasibku muxuu yahay munaasibku marka waxa weeye inuu khayrka aado taasa marka waxa la falaqtahama yani khayraadka uu ruuxu sameeyo kuwa ugu fiican qaar kamida marka la cabiray hadiiba ilaahay saa ugu nimceeyay oo sida quruxda badan iyo xubnaha qaaliga siiyay labadii dariiqna u kala qeexo u kala cadeeyay waxa laga rabo muxuu yahay marka falaqtahama waxay tahay marka si uu nicmooyinka uga shukriyo in uu marka jiirta jiiro iqtixaamka waxa la yiraahdaa yani wax weeyaan inuu shayga uu ruuxu isku qaado inuu isku xambaaro inuu qasbado inuu jiiro ayaa la yiraahdaa iqtixaamka la yiraahdaa isku tuurid way macna طيب caqabadana waxa la yiraahdaa waa jiirta waa jidka buurta korkeeda ka dhacay taaga ah marka khayrkii iyo wanaagii waxa laga dhigay sidii jidkaasi jiirta ka dhacayo kale jidkaas buurta korkeeda maraya laga dhigay ruuxii inuu sameeyana waxa laga dhigay sidii ruux isqasbahaya oo isxambaaraya oo yani wax weeyaan shay jiirahayo kale oo xoog u galahaya oo si rafaada wixii ku qabanaya laga dhigay laana wax weeye ruuxu khayrka markuu sameeyo waa inuu mujaahada iyo dadaal ku sameeyo waa inuu naftiisa ka adkaado shaytaanka ka adkaado caqabaadka iyo challenge-yada hor yaalla kulli inuu jiiro sidaas uu khayrka ku sameyn karaya marka khayrkiina waxa laga dhigay shay meel sare yaallo dadaal badan u baahan ruuxiina waxa la yiri ma gaari kartid inaad isqasabto oo aad xoog isticmaasho jiidha mooyaan markaas waxa caqabadii ba hadana la fasiray jiirtaasi maxay tahay jiirta la leeyahay waraadi oo xoog ku gal oo hel orgaad la leeyahay maxay tahay wama adraaka mal aqaba waxa la yiri waa qoor xoreynteed maxay tahay dadka adoomada ah in adoonnimada laga saaro oo intaad soo iibiso xoolaha ku bixiso kadibna aad xoreyso adoonnimada ka saarto waa amal khayr badan waay dambiye fara badan oo bini aadamku galana kafaaradooda waxa la geliyay qoor xoreynteeda laana naf bini aadam inaad xoreyso yani Allah tabaaraka wa taala amaasha ugu jecel yahay bay kamid طيب waxa iyaduna lamida aw it'aamun ama maalin ay gaajo daran jirto gaajo jirto abaar jirto rafaad jiro cunto yaraani jirto maalinka isaga inuu ruuxu quudiyo yuu quudinaya agoon ay qaraabo yihiin ama miskiin faqiir ah oo ay faqriga iyo gaajadu dhulka ku riday kicila dhulka yaala labada inuu ruuxu wax taro oo quudiyo ama qoor inuu xoreeyo ayaa waxay tahay jiirta la leeyahay muujiir oo isku qaado طيب yani wax weeyaan waa amal u baahan in aad dadaal iyo xoog iyo inaad naftaada qasabto inaad ku sameeyso u baahan waa طيب فلقتحم يعني اسكموسن قادين اما موسن جيرين العقبه جيرتي موسن جيرين
wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey malcaqabatu jiirtu waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey fakku raqabatin waa qoor xoraynteed yani waxa weeyaan inaad fakiso oo aad addoonnimada ka fakiso oo aad xoraysood xornimadeedii usoo celiso taa wey macnaha inta badanna waa dadka addoommada ahee gaalo lasoo qabsaday wey ilaan addoonnimadu si kale kuma timaado diinta waxay ku timaadaa gaalo inta la dagaalamay kadibna gaalnimo lagu soo qabsaday sida addoonnimo ku galay shareecadu marka aad waxay ugu dadaalaysaa in addoonnimada laga saaro la xoreeyo aw amase icaamun quudin fii yowmin maalin dhexdiisa maalinkaasoo dii masqabatin gaajo daran u saaxiiba maalin aad loo gaajaysan yahay in la quudiyo yatiiman agoon icaamun quudin yatiiman agoon la quudiyo daa maqrabatin oo qaraabanimo u saaxiiba xigtadaada ah lianna qaraabada waxa la siiyo agoonna waa yahay waa kii si gooniya shareecadu u ammaantay wax siintiisa haddana qaraabanimuu la dheeryahay qaraabada wixii lagu bixiyana waa silatun wa sadaqa waana qaraabo xidhiidhin waana ajirkii sadaqada aw miskiinan ama miskiin quudintiis miskiintaasoo daat matrabatin caradhac u saaxiiba yani faqriga iyo dhibka uu gaadhsiiyey inuu dhulka yaallo oo dhulka ka kicla way macnaha uma marka kadibna kaana uu ahaado min aladiina kuwii mid ka mida aamanuu rumeeyey oo watawaasaw dardaarmay bisabri sabirka dardaarmay oo watawaasaw isu dardaarmay bimarxamati naxariistana isu dardaarmay ulaa'ika kuwaasi asxaabulmaymanati midigta asxaabteedii wey waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaatina aayadahana ku gaaloobay oo diiday hum iyagu asxaabulmash'amati bidixda asxaabteedii wey calayhim korkooda naaru naar ba ahaatay mu'sadatun tullu awdahayoo lagu daboolaya ama calayhim korkooda naaru naar ayaa mu'sadatun mid lagu daboolaya markii intaa uu ruuxu sameeyo oo uu wixii ilaahay siiyey wax ka bixiyo oo naftiisa xoog kaga soo qaado oo meelahaas ku bixiyo intaa keliya ma ahee haddana waxaa laga rabaa inuu ka mid noqdo dadka iimaanka la yimid haddana sabirka dardaarmaya ummadda la hadlaya wacyigelinaya ha la sabro oo ilaahay qadarkiisa ha lagu sabro oo macaasidiiyo dunuubta ha laga sabro oo taacada ha lagu sabro oo waxbixinta ha lagu sabro sabirka inay dardaarmaan waay naxariista dardaarmo in laysu naxariisto khalqiga ixsaan loo sameeyo ka baahan muxuu ahaaye ee dhibaataysan in loo turo in wax la siiyo naxariistana dardaarma saasaa la doonaya bimacnaa waxa weeye waxna bixi dadkana ku qalqaali oo ku boori inay naxariistaan ay wax bixiyaan labadaasaa la doonaya in la isku daro macnaha waxaa la yidhahdaa aljamcu bayna ashajaacati waalkaram waaye geesinimo iyo deeqsinimo kulantay waaye ayib dadkaasi sidaa sameeyey oo intay wax bixiyeen haddana wanaagga dardaarmaya oo ummadda wacyigelinta khayrka u sheegaya sabirka u sheegaya yani waxa weye waxaa kaloo soo geli kara kii dhibaataysnaana inuu sabro kii waxhaystayna inuu naxariisto dadkaasi waa dadkii kitaabkooda maalinta qiyaamada midigta laga siin doono waa asxaabulmaymana kuwa waxaa jira iyaga aayaadka ilaahay beeniyoo diiday waxaanoo dhan ku gacan saydhay tashaday kuwa iyagii waa bidixda asxaabteeda naartaana maalinta qiyaamada lagu dabooli doonaa yani naarta marka la galo waa lagu aaburi waa la daboolayaa kama bixi karaan sidaas way macnaha uma markaa kadib kaana uu ahaado min aladiina kuwii mid ka mid sifooyinka markuu la yimaado kadib kaana uu ahaado min aladiina kuwii mid ka mida aamanuu rumeeyey oo watawaasaw dardaarmay bisabri sabirka dardaarmay watawaasaw isu dardaarmay bilmarxamati isu naxariisashada iyo naxariista ulaa'ika kuwaasi asxaabulmaymanati midigta asxaabteedii waay waa dadka kitaabkooda midigta laga siin doono waaladiina kuwa kafaruu gaalooboo diiday biaayaatina aayadahanaga ulaa'ika kuwaasi asxaabulmash'amati bidixda asxaabteedii way waa kuwa kitaabkooda bidixda laga siin doono calayhim korkoodana naaru naar ba ahaatay mu'sadatun tu lagu awdahayo ama lagu daboolayo macnaha suuraddii halkaasay beled inoogu dhammaatay suuratu shamsi baa ku xigta ayaduna waa suura makiya waxaa allah tabaaraka wa tacaala uu ku bilaabayaa inuu ku dhaarto ilaa 10 isugu jirta makhluuqaadkiisa iyo naftiisa wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala washamsi qoraxdii baan ku dhaartay iyo waduxaaha iftiinkeeda barqinkeeda oo iftiinka laga wado walqamari dayixii baan ku dhaartay idaa goortii talaa uu raaco haa qoraxda uu raaco iftiinka markuu ku raaco ama socodka ku raaco
wannahaari maalintii baan ku dhaartay idaa goortii jallaa uu faydo haa dhulka basiitada korkiisa dhulka korkiisa markuu faydo iftiimiyo waa walleyli habeenkii baan ku dhaartay wannahaari maalintii baan ku dhaartay idaa goortii jallaaha uu faydo iftiimiyo ama mugdiga uu faydo walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii yaqshaaha uu daboolo yani wax weeyaan adduunka uu daboolo ama dhulka uu daboolo wasamaa'i samadii baan ku dhaartay iyo wamaa midka banaha dhisay oo maadu alla waay maa allaha banaha dhisay walardi dhulkii baan ku dhaartay iyo wamaa midka oo alla ah daxahaa fidiyey iyo allaha fidiyey wa nafsin naf baan ku dhaartay iyo wamaa allaha sawaahaa simay abuurkeeda simay oo fa alhamahaa ku ilhaamiyey fujuurahaa faajirnimadeeda dembiyadeeda iyo xumaanteeda macaasideeda iyo taqwaha alla ka cabsigeeda intaasaan ku dhaartay qad aflaxa waa liibaanay man ruuxi zakaaha nafta daahiriyey waqad khaaba xaqiiqe wuu khasaaray man ciddii dasaaha nafta qariyey ama duugay asaguna waa khasaaray 10 way dhaarood markii la isku daro qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha way meesha loo socdo qoraxdu ilaahay ku dhaartay waa makhluuqaasi weyniga badan manaafacaadka faraha badanna ku jiro ilaahay awoodiisa iyo qudradiisana ku tusay iyo iftiinkeeda duxaaga waxa la yiraahdaa waa barqinka laakiin waa xilliga qoraxdu ugu iftiin badan tahay baa la yiraahdaayo iftiinkeeda laga wada wal qamari idha talaha dayhu markuu raaco wuxuu raacayaa damiirka talaha wuxuu noqonayaa qoraxdii buu raacayaa see ku raacaya iftiinkii buu ku raacayaa qoraxda iftiinkeedu markuu baxo iftiinkii dayaxa soo galay sidaas waa la yiraahdaa waxa kale oo la yiraahdaa yani ma ahe niska hore yani 15 hore dayaxu qoraxdu markay dhacdo dabagalaya oo markay sii dhacayso dabcan uu la socda uu ka hadhaya kadibna uu raacaya uu daba soconaya macnaha maalintii baan alla ku dhaartay buu leeyahay idaa jallaaha basiitada ama dhulka korkiisa markuu iftiimiyo faydo oo kala cadeeyo way macnaha ama mugdigii dhulka korkiisa ah ee habeennimadii markay maalintu faydo oo meesha ka saarto habeenkii baan ku dhaartay idaa yaqshaaha markuu daboolo mugdigiisa markuu ku daboolo dhulka ku daboolo korkiisa samadii baan ku dhaartay buu alla yidhi wamaa banaaha iyo allaha dhisay maadu bimacna alladii wey walladii banaaha iyo midka dhisay oo allah tabaaraka wa tacaala waa makhluuqaad waaweynoo kulligood ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa ku tusayaan waana makhluuqaad kulligood nicamaho bini aadamka waxay ugu fadhiyaan macno weyn waa makhluuqaad midda kale aayaat min aayaatillaahi weeyo ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa ku tusayaan sifaadka ilaahay sifatul kamaalka baa laga faa'iideysanaya intaas oo dhan bay faa'iideynayaan was-samaa'i wamaa banaaha wal ardi dhulkii baan ku dhaartay wamaa taxaha allaha fidiyey ee u fidiyey in lagu dul noolaado aadamaha u fidiyey makhluuqaadka u fidiyey si ay ugu dul noolaadaan wa nafsin wamaa sawaaha waa nafta ilaahay simay oo uu si qurux badan u abuuray yani waxa way khalaqaha sawiyatan mustaqiima naftii buu ilaahay abuuray iyadoo siman oo toosan laba macnaba waa la yiraahdaa ayadoo fitradii ilaahay ku abuuray ku sugan ama ma ahe abuurkeeda lafteedu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu simay waa la yiraahdaa naftan maxaa laga wadaa marka qaar waxay waa naf oo dhan naf ilaahay abuuray oo dhan ayaa soo galaysa waa ruuxdii markaas ama waxaa laga wadaa oo gooni ahaan laga wadaa siday culimada qaar kood leeyihiin aabaheen aadam calayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam oo waxay leeyihiin makhluuqaadka ilaahay abuuray buu ugu dambeeyey maalin jumca baa la abuuray yani wax weeyaan waana makhluuqaadka intoodii kale marka la abuuray bini aadamka ugu dambeeyey oo ilaahay abuuray tabaaraka wa tacaala marka aadam baa laga wadaana waa ra'yi kale طيب فألهمها مركو إلهي نفط أبوري أيو إلهي تبارك وتعالى وحو أعدي وحو كو إلهامي إلهامين توحوي إن قلبك لقاك ليو أما أغيسين ده أما فهمسين ده أما إلهامين بمعنى إنتو فهمسيي أو أغيسيي يهدنا إنتا كليا لقمت دينين هدنا قلبك لوق ليو والو قنعي والو قنعي فألهمها فجورها marka nafti midina markay yani wax weeyaan ay xoogaysato kortaba
markaaba waxay aadaysaa macaasida iyo fujuurka iyo dembiyada iyo gaalnimada iyo xumaantay aadaysaa. midina markaaba waxaa qalbigeeda ku jira wanaagga iyo khayrka iyo tawxiidka iyo taacada iyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhankaasay aadaysaa. labadaba ilaahay baa ku kala ilhaamiyeyo waa ilaahay qadarkiisa way alqadaa walqadar way bimacna wax weeyaan waxay tilmaamaysaa faalhamaha fujuuraha wa taqwaha wa maamul ilaahay way ilaahay baa sida u qadaray tabaaraka wa tacaala. waxaana macnaha ku tusaya xadiidka Cimraan ibn Husayn nin ree Muzayna ama ree Juhayna ayaa rasuulka u yimi sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu ya rasuulallah ara'ayta ma ya'malu an-naasu bal ka waran waxay dadku sameynayaan fiihi wayatakaadaxuun waxa dadku ay ku rafaasan yihiin iyo dadaalkan ay bixinayaan bal ka waran ma shay ilaahay horay u qorayba oo qadar hore iyo qorshe horay u dhacay miyaa mise waa shay iyagu hadda ay bilaabanayaan oo cusub oo aan horay u qornayn. markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam bal shay'un qad qada Allahu calayhim may waa wax ilaahay horay u qoray buu ahaa wax la xukumay oo la qorsheeyay oo la qoondeeyay way. markaasaa wuxuu yidhi marka fa fiima alcamal fa fiima nacmal maxaan marka u dadaalkan maxaan u bixinaynaa maxaa cibaadadan iyo dadaalkan iyo waxaan u samaynaynaa waxna duuba horay looga faaruqayba wax horay loo qoro loo qorsheeyay haduuba yahayba maxaan isu dhibaynaa marka maxaan u dadaalaynaa. markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam man kaana Allahu khalaqahu liihda almanzilatayn yuhayyi'uhu laha ruuxii ilaahay uu labada boos midkood u abuuray tii uu abuuray buu ilaahay u diyaarinayaa. وتصديق ذلك في كتاب الله أرنتانا دليل كيدو يرمين تيدو كتابك إلهي بكتالا مركزو آيادا أخريي فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها مركا يعني وحويان بني آدم كميل ما فريسانيو وهمام وحارث واي بني آدم كقصب واي إنو فكره إن يحبنيه سور دقاقان وقصب ميل فريسان مايو haddiiba uusan meel fadhiisanoo shaqaynayo wuxuu samaynayo waa wax horay u qorshaysan sax waa wax qadaran laakiin kii janno iyo khayr loo qoray oo ilaahay agtiisa uga qoran tahayna jidkii jannada ayaa loo diyaarinayaa oo loo fududaynayaa. kii naar loo qoro ilaahay agtiisa naari uga qoran tahayna jidkii naarta iyo xumaantii iyo xaggaasaa loo fududaynaya oo loo diyaarinaya. camal fala wey marka mid kale wax ilaahay agtiisa kaga qoran ma taqaanida adiga dadaal waay saas wey. ونفس وما سواها أو فألهمها كو إلهاميي أو انتو عديي أغيسيي قلبي أنا كجلي فجورها معصية دي حمان تهذا الدنبية أي جليس وتقواها أي الله كعبس كذا الله أقدري قندي قلبي كجلي يكون قنعيوه أنت سنقول دارتي بيقول الله قد أفلح واللي باني من عد زكاها ظاهري سي ها بني آدم كا liibaantiisu waxay ku jirtaa naftan ilaahay uu siiyey inuu ka shaqeeyo u fiirsada nafta daahirinteeda iyo aasideeda isagaa loo tiiriyey iyadoo ilaahay qadaray ayaa haddana waxaa la yidhi inaad naftaada daahiriso iyo inaad aastood wasakhayso labadaba adaa iskale dadaalkaagayna ku xidhanta qad aflaxa waxaa liibaanay man zakaaha يعني وأدونك فعل كيسوا أدونك إنه اختيار ليه أو ليه هاي دونيتان ليه أو كسب يفعل ليه أي سوق قد أفلح من زكاها وآيات هراء لقيها ودوت قاركود إنه كفهمان ووحن كذا تهدو بد إلهي وبقريب يعني كل إلهامية وحن هرين الله قري فيما العمل هل كده يعني سيل الله عدي وحليلي ما أدوكو دونيتان والله ده هاي khiyaarna waad leedahay waadna samayn kartaa waad isdaahirin kartaa waadna iswasakhayn kartaa adiga khiyaar baad leedahay labada mid samee saas way macna haddaad kan samaysana waa liibaan haddaad kan samaysana waa khasaaro way macna sidaas weeyaan saas daraadeed ayaa bini aadamka khasaarihiisa iyo liibaantiisa waxay ku xidhantahay isagu jidku isqaadsiiyo iyo siduu isagu u dadaalo. nafta daahirinteedu wax weeyaan oo taskiyada naftu وإيمانك عملك صالحة waxa nafta lagu dhaqo ee lagu nadiifiyo ee lagu daahiriyo ee lagu hagaajiyo kowa iimaanka mabadiida iimaanka waay laana shirkigi iyo wasaqdiisii bay nafta ka daahirinaysa marka labaadna nafta waxa lagu daahiriyaa waa taacada amalka saalixa ilaahay ku xiranto
naftii way dhaqmaysaa daahir bay noqonaysaa akhlaaqdii xumayd bay ka tegaysaa iyada dhanba waxay noqonaysaa shay daahir oo nadiif ay noqonaysaa naftu waxa wasakheeya ee dila ee aasa ee qiimo dila waxa weeyaan waa shirkiga gaalnimada marka xigtana waa dembiyada marka labadaas way saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam waa kan soo marnayba suuratul a'la baan ku soo marnay qad aflaha man tazakka ruuxi isdaahiriya waa liibaanaya way macna nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ducadiisii bay ahayd yani allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha ilahu nafta ii daahiri marka waxay kamid tahay ducada yani waxyaabaha nafta lagu daahiriyo qad aflaha waxa liibaanay man cidi zakkaha tobanka dhaarood waa waxa loogu dhaartay qad aflaha waxa liibaanay man ruuxi zakkaha naftaas daahiriya oo iimaan iyo daaca ilaahay ku daahiriya waqad khaaba waxa hoogay oo khasaaray man cida dassaha nafta yani wax way duugtay ama yani wax weeyaan qarisay dasiga waxa la yiraahdaa waa nusqaaminta waa xaqirida waa aasidda waa duugidda oo nafta marka dambi iyo qashin geliso qiimaheedii oo dhan baad dishay halaag iyo meel xun baad ugu sabab noqotay macna intaas rabbi ku dhaartay tabaaraka taala waxa marka kula gudboon adiga inaad dadaal la timaado ood shaqaysato ood isnadiifiso ood isdaahiriso ood xumaanta ka fogaato taasaad muxuu ahay ku liibaanaysaa haddii aad yeeli weydana khasaara diyaar kuwa adduunya akhraba allah tabaaraka wa tacaala marka wuxuu soo qaatay intaa kadib niman intay isdaahirin waayeen khasaarahoodii miisaal waaye markii qaacidadii la dhigay ayaa miisaal la bixinayaa miisaal ummadihii tagay mid ka mid ah tusaale lagu bixinaya allah wuxuu yidhi kadabad way beenisay thamuudu ree thamuud waa beeniyeen bitaqwaaha qooqeeda qooqidda ay qooqday darteed ama qooqideeda sababteeda bay ku beenisay sababta inay yani beeniso keentay rasuulka inay beeniso oo alla beeniso oo kitaabkii loo soo diray beeniso maxaa ku kalifay bitaqwaaha qooqeeda iyo qooqideeda sababteed way kibirtay kibirkii baa wuxuu gaadhsiiyey inay diidaan xaqii id waqti bay muxuu ahay beenisay thamuud in bacatha uu bixitimay ashqaaha ree thamuud kii ugu nasiib xumaa ree thamuud waa qoladii loo diray nebi saalix baa loo diray marka waxay ahaayeen sida culimadu leeyihiin yani ummadihii la halaagay kuwa ugu halaag fududna way ahaayeen dembiyada lagu halaagay ummadaha qur-aanku ka sheekeeyey kuwa ugu dembi fududna way ahaayeen iyaga marka miisaal baa loo soo qaadanaya ayib kadaba thamuud waa beenisay bitaqwaaha qooqeeda sababtiisay ku beeniyeen id waqti bay beeniyeen in bacatha ashqaaha nebi saalix markuu u tegey oo xaqii u sheego war ilaahay rumeeya yaa xaqana qaata markuu ku yidhi waxay codsadeen noo keen aayad calaamad aan kugu aqoonsini mucjiso noo keen neef baa loo soo saaray hal baa loo soo saaray marka hashii loo soo saaray ayaa imtixaan looga dhigay iyagii codsaday markay codsadeen oo codsigoodii laga jawaabayna codsigii baa imtixaan looga dhigay waxaa la yidhi hashani meesha aad ka cabtaan ma ceelba ma webiba meesha aad ka cabaysaan maalinna iyadaa iska leh maalinna idinkaa iska leh maalinkeeda ha u tegina kalkeeda ha ugu tegina ha u dhowaanina markii tii bay u dulqaadan waayeen markaasay hashii ay dileen ayib id waqti ayaa beenisay thamuud in bacatha uu bixitimay ashqaaha markay hasha inay dilaan go'aansadeen go'aan bay ku qaateen hasha inay ka takhalusaan markaasay tashadeen waryaa hawshaa fulinayaa la yidhi mid khayr daran oo kii ugu khayr darnaa ah ayaa hasha dilkeedu u soo baxay marka aniga haliigu ogaado yidhi kaas wey id waqti in bacatha uu soo bixitimay ashqaaha thamuud midkoodii ugu nasiib xumaa ee ugu khayr darnaa ayaa soo baxay wuxuu u soo baxay hasha inuu dilo faqaala markaasaa waxuu yidhi lahum iyaga rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi waa saalixe nebi saalix baa wuxuu ku yidhi iyagii naaqat allah ixdaruu naaqat allah war hasha ilaahay iska jira wasuqyaaha iyo cabiddeeda hasha ilaahay iyo kalkeeda iyo cabiddeeda daaya war ha isugu dhowaanina saasuu ku yidhi ayib war ka jooga u fiirso iyagoo dhan buu hadalka u jeedinaya laanna ninkan hasha dili doona go-aanka keligii ma lahayna waa la isla qaatay gacanta unbuu lahaa iyo fulinta fakadabuuhu way beeniyeen nebi saalix taladiisii ahayd war ka jooga war hasha daaya way beeniyeen
facaqaruuha hashiina way boqon gooyeen way dileen yani boqontay ku dhufteen kadibna way ka takhaluseen fadamdama wuu halaagay calayhim korkooda rabbuhum rabbigood baa halaagay bidambihim dembigoodii sababtiisu ku halaagay fasawaaha damdamadii iyo halaagiina waa ku simay mid kama fakanin ama fasawaaha dhulkuu la simay allah tabaaraka wa tacaala wuu halaagayo wuu rogo wuu baabi'iyey ayib walaa yakhaafu alla kama baqayo cuqubahaa damdamadaa iyo halaagaa uu halaagay ciribteeda dambana ka baqi maayo allah tabaaraka wa tacaala kama baqayo falkan uu sameeyey iyo halaaga uu ku sameeyey amaa wax ka daba yimaadaan amaa lagaaga daba yimaadaan amaa laguu qabsadaa ama wax lagaaga soo baxaan isma dhahayo waxaa ka duwan makhluuqa markuu wax sameeyo xataa si kasta u xoog badnaado wuxuu leeyahay ruuxan amaa lagaaga daba yimaadaan ciribteeda dambe amay yani wax way dhib kaa soo gaadhaa ama ilaahay buu rumaysan war xagga allah ma wax kaaga yimaadon laguu qabsada aakharo ama ciddan uu dhibka u geystay laftiisuba leeyahay war ama wax ka yimaadaan laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala isagu walaa yakhaafu cuqubaha ciribteeda dambe iyo wax ka imaan kara alla kama baqayo tabaaraka wa tacaala sidaasaa reer thamuud loo baabi'iyey markay rasuulkii beeniyeen tilaabadaana qaadeen miaal marka waxay u tahay naf wasakhowday oo la daahirin waayey oo iimaankii diiday oo isdaahirin weyday nafta noocaasoo kale ah way khasaaraysaa soo ilaahay kuma dhaaranin tusaalaheedu reer thamuud baaba tusaale ah weliba oo iyagaaba ugu roone kuwa kaleba ka sii daranba qur-aanku uusan ka sheekaynin laakiin waa tambiih tan fudud baa waxay inagu baraarujinaysaa kuwa ka sii daran macnaheedu waxa warka murtidiisa marka la soo ururiyo intaasoo dhan wuxuu u dhacayaa bini aadanu naftaada ka shaqee oo isdaahiri oo ishagaaji oo dadaal oo iimaanka iyo camalka saalixa ku dadaal oo xumaanta ka tag sidaas way macnaha suuradda saddexaad ee darsigeenani waa suuratu leyl ayadana waa suura makiya waay ayib ayadana waxay ku bilaabanaysaa dhaar rabbi tabaaraka wa tacaala uu dhaaranayo alla wuxuu yidhi walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii yaqshaa uu daboolo khalaa'iqda markuu mugdigiisa ku daboolo wannahaari maalintii baan ku dhaartay idaa goortii tajallaa uu muuqdo ama faydmo maalintii markuu faydmo oo uu maalinku wuxuu ku faydmayaa mugdigii baa baxay wamaa allihii baan ku dhaartay khalaqa abuuray addakara labka iyo waluntha dhadiga min nutfatin idaa tumna waay hal biyo ah oo hal mar la tuuray ayaa wuxuu ka abuuray dhadig iyo lab intaasaan ku dhaartay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala ina sacyakum camalkiinu la shataa waa kala tagsan yahay waa mid kala duwan oo kala tagsan isku mid maaha way macna ayib ina sacyakum aadamihiyow camalkiinu la shataa waa mid kala tagsan see u kala tagsan yahay waa lasii faahfaahiyey faama man ruuxii acطaa siiya wixii bixi la yidhi bixiya xuquuqda guta oo wattaqa is-ilaaliya wixii iska ilaaliyana iska ilaaliya oo wasadaqa rumeeya bilxusnaa midii wanaagga badnayd oo kelimadii towxiidka ah ama xaqii ah ama jannadii ah fasanuyasiruhu waanu diyaarinaynaa isaga lilyusraa xaaladii ugu fududayd baanu u diyaarinaynaa ama waanu fududaynaynaayo xaaladii ugu fududayd baanu ku fududaynaynaa wa amaa man qola waa qoladaas wa amaa man ruuxii bakhila bakhaylay oo wastaqnaa deeqtoomay ayib wixii bixi la yidhi ayuu ku bakhaylay waa ku gacan adayga wastaqnaa waa deeqtoomayoo adduunki iyo shahawaadkiisiibuu ku deeqtoomay khayrkii iyo wanaaggii wixii ilaahay soo dejiyena waa ka deeqtoomay oo wakadaba beeniya bilxusnaa kelimadii towxiidkana beeniya iyo xaqii ama jannadii aakhara beeniya fasanuyasiruhu isagana waanu diyaarin lilcusraa fasanuyasiruhu waanu diyaarin lilcusraa arintii ugu cuslayd baanu u diyaarinaynaa ama aanu yani u fududaynaynaa wamaa yuqni deeqi maayo canhu xaggiisa maaluhu xoolihiisii waxba ka deeqi maayaan waxba ka tari maayaan idaa goortii taradaa uu halaagsamo ama uu naarta ku shalwado ku dhaco ayib sidaas weeyaan habeenkii buu ilaahay ku dhaartay markuu adduunka daboolo waa aaya min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala maalintii markay
faydanto sidoo kale waa labadaas yani isdaba maraya markuu habeenku yimaado maalintii baa baxaysa maalintu markay soo gashana habeenkii baa baxaya way isdaba joogaan way iscirbinayaan طيب waa ilaahay aayaadkiisa waaweyn bay kamid tahay yani wax weeyaan waxan socda ee nidaamka ku socda ee aan isdaba maraynin ee meeshan maalin sugayna habeen iimaanaynin meeshan habeen sugaynana maalin iimaanaynin isma daba marayaan waa nidaam daqiiq ah oo haba yaraatee khalal uusan ku dhacaynin iftiinkii oon u baahannahay inaynu ku shaqaysano habeenkiinu u baahannahay inaynu nasanno oo aynu raaxaysano Allah abuuray labkiya dhadiga way iska soo horjeedaan hal biyo ah oo raximka galay ayuu ilaahay wuxuu ka abuurayaa marna dhadi ka abuurayaa marna lab ka abuurayaa marna isla biyihii ayuu ilaahay wuxuu ka abuurayaa yani wax mataano oo midna lab yahay midna dhadig yahay ilaahay baa ka abuuray tabaaraka taala awoodda ilaahay qudradiisa ku tusaysa Allah wuxuu ku dhaartay marka amalkiinu waa kala tagsan yahay isku mid ma aha amal kala duwan ayaad leedihiin yani wax weeyaan ninba dhinac buu u jihaystay waa sida amalkii u kala duwan yahay baa marka faahfaahin laga bixiyay dadku waa laba fa amma man a'ta wa qalada hore waa dad bixiyay xuquuqdii lagu lahaa a'ta siiyay xaqi ilaahay buu bixiyay xaqi khalqigu iska guday yani wax way iimaankii buu bixiyay yani khayrkii buu bixiyay xuquuqdii xoolihiisu bixiyay a'ta waa wixii lagaaga baahnaa oo dhan bixinteeda waa wuu siiyay wattaqana waa is ilaalintiyo wixii ilaahay ka xaraameeyay buu iska ilaaliyay wixii loo dirayna waa sameeyo waa bixiyay wixii laga reebayna wattaqa waa iska ilaaliyo waa iska dhowray shirkigii iyo macaasidiina waa iska ilaaliyay wasaddaqa bil husnana waxa weey waa tasdiiqi waay laana diintu intaas ku yani waxa weey sideedaba tiirarkaas ay ku salaysan tahay wixii war ee lagu sheegay rumee wasaddaqa bil husna wixii lagu faray fuli oo samee ma man a'ta wa wixii laga rabay ka tag wattaqa waa diintaaba inta ku eegba wax bixi lagu yiri wixii ka tag lagu ka tag wixii war ee lagu sheegay rumee sida ruuxii sameeyay fasanu yasiruhu lil yusra markaas waxa weey waxa loo diyaarinayaa ama loo fududeynayaa tii fududeeyay dariiqa fudud ama xaaladda fudud ee jannada marka dama gaadha ayaa loo fududeynaya طيب بالحسنى هذا وحي علماء قاركود ليهين الحسنى وكلمة التوحيد أما والكلمة كستو وناكسن أما وجندي أنت بوليد هذا طيب قلوا الله بعد وحي بحي اللي يجري بيكون بخيلان إيمانك يا خيرك يا طاعتي يا حقوقي أما حوله هذا أما نفط هذا ويدي ذني بحيان طيب واستغنى معاصدي iyo dunuubtii iyo shahawaadkii adduunyadana wuu ku kaaftoomo wuu ku maarmay wax kale oo marraba iyada kaliya tuu haysta طيب waa wixii daal la yiri wixii rumeel la yirina waa beeniyay warkii loo sheego dha waa beeniyay aakhira jirta waa beeniyay waa lagu la xisaabtami waa beeniyay kitaabu ilaahi soo dejiyay waa beeniyay rasuul buu soo diray waa beeniyay wakadaba bil husna kalimadii tawxiidkiyo iyo muqtadayaadkeedii lawaasimteedii waa iyadana waa beeniyay ka isagana waa la diyaarinaa waxa loo diyaarinayaa midii culayska badnayd waa dariiqii naarta loo mareeyay naartii iyo dariiqeedii iyo xumaantii baa marka isagana loo diyaarinaya halkaas loo diraya way macna kaasi markuu naarta galana xoolihiisi waxba u tari maayaan madaxnimadii waxba tari mayso magaca Allah waxba tari maayo waxba kuma qaban karaan way macna طيب والليل habeenkii baan ku dhaartay ida goortii yaqsha uu daboolo khalqiga والنهار مالنتي بان كدارتي اذا غورتي تجلى وموقدو اما او فيدمو iyo wama Allah khalaqa abuuray adhakara iyo wal untha dadiga abuuray labkiya dadiga abuuran ku dhaartay inna sa'yikum amalkiinu la shatta wa ku kala tagsan waa sida amalku u kala tagsan yahay ayay aakhira iyago kala tagsan iman doonaan طيب فاما من اعطى halka hadith nabi sallallahu alayhi wasallam isagana oo ku soo arooray oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay isagoo saxaabadu ay janaaso joogan xadiidka Ali ibn Abi Talib ba su'aasha la weydiiyay rasuulka ilaahayow waxaan hadayba fududeyn ilaahay tahay oo midkan xaqan uu fududeynayo midna xaqa mid xaqa uu diyaariyay midna xaqa uu diyaariyay maxaan amal falaynaa bay dhaheen maxaa nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam amma ahlu as-sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli as-sa'ada
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ آيات مركة أخري ضدك إله النار وقلت لقلينا عملك أهل النار كالله ديارين والله فضينيه dadkii ilaahay uu janno iyo wanaag ugu talagalina amalka ahlu jannada iyo dadkii liibaanta amalkoodii iyo dhaqankooda loo fududeynaya ee shaqeeyo amal falabu nabiga sallallahu alayhi wasallam kadibna aayadan uu akhriyay fa amma man a'ta wattaqa bukhari baa soo saaray xadiidkaas fa amma man ruuxi a'ta siya wixii bixi la yiri xuquuqdiisa oo wattaqa is ilaaliyo wixii iska jiro iska ilaaliya oo wasadaqa rumeeya bil husnati wanaaga badnayd oo kalimadii wanaagsanayd ama jannadii arrumeeya fasanuyasiruhu waanu diyaarinayna nuhayiuhu waay ama waanu fududaynayna way lil yusra tii fudayd xaaladii ugu fudayd badnayd oo waa khayrkii iyo taacada ila jannada laga gaaro wa amma man ruuxi bakhila oo wixii bixi la yiri ku bakhila wastaghna deeqtooma naftiisa iyo shahawaadka adduunyada iyo ku kaaftooma wax kalaba يعني إنه أباهي خير إيه الدين إيه كتاب لسودة طاعي إنه أباهي باسمه أركو ودقتم أنت نوبكو كافتهم إيبا وهو كذب بينية بالحسنى تي هو ناكسنين بينية ومعنى وحوي التوحيد كي أما حقي بينية فسنيسره إساقا وانو ديارينينا إساقنا للعسرى حالة دي أقول عليس بنيد بانو ديارينينا أما أفضو ديننا كل بكاء دهضب طيب وما يغني ديق مايو وحبك الديق مايو عنه حقي سماله حوليس إذا قرتي تردى وشل وضه نار تمركو كوهبته وكوها لك سموي معنا إن علينا كركنا وحا هذا للهدى هنون تعدينت حقي باطل كإنا كلا عدينا أنك النصارى طيب أليل وإن لنا أنك أي نوسقنا ذي للآخرة مدة الدنب والأولى تهرئ أدون كنا أني قالوا ألا ليه تدنب آخرنا أني قالوا لبضا بقعنت يدي كتشران فأنذرتكم مركا وحان إذن كدقى يا آدميه نار بان إذن كدقى يا تلظى أو يعني هريس هلعيس طيب لا يصلها نار تاسو لا يصلها إسنقلين إلا الأشقى أما لا يصلها نار تامقليو إلا الأشقى متك أقول أردرا أما الروح أقول نصيب حن خلقك مويه الذي كاسو كذب بينيي وحي الرميل يروا بينيي مبادئ إيمانك بيني أو تولى جسدي أو كجسدي عمل كينا كجسدي إيمان كينا بيني عمل كينا كجسدي كاسوة إن علينا للهدى وحيلم يتهي وهديناه النجدين أو كلواه وهداية النوع اللي يقال هداية البيان وعدين يقيحد واي ألا وحليه أنيجا إسارنتهي إن إدين كلا عديو شيتك wanaagsan iyo midka xun maxaa lagu kala cadeeyay kitaabtu ilaahay soo dejiyay iyo rasuulku soo diray hadiiba kitaabna ku soo gaaray rasuulna lagu soo diray cudurdaar malihid marka warku waa cadiya طيب آخرية أدونا لبضب أنيق عليه وقال لي تبارك وتعالى وإن لنا للآخرة والأولى لبضب أنيق عليه لبضب إلهي بقى معمولي سيقاك عنتك وهي سيدو دونو كي إليا وحو دونو قيبين يا سيدو دونو قيبين يا مر هذا سيداس تهي نار بان إدين كدقيا هل عيسى والله الشيديو يعني الشيدتان كيدي هل عيدو وسيسي هذا طيب نار تايا قال يوي وحا قال يروح دادك أقول نصيب حن كاسو وحو كو قالي وابيني وحي الرمال ليري وحي السماء ليرينا وكجسدي كاسا نارتا قال ورنارتا اسكا جرا او اسكا الاليا الهي تبارك وتعالى وانو دغيا او نفتيسو انو دغيا او waxa soo socda ayuu inoo sii sheegaya sideen muxuu ahay leeno qarin maayo leena dagi maayo leena masri waxba leeno qarin maayo waxa lagu leeyahay adeer waka banaanka taala warku waa cad yahay meeshaad mari la adeeg ku taala marka waxaasi waa xaqaa'iq jirto soo socoto in علينا korkanaga waxa ahday lal huda hanuunin cadeyn baa laga wadaa inaan xaq iyo baadilka kala cadeyno wa in lana anaga inoo sugnaatay lal aakhirata keligana iskala way lal aakhirata midda dambe iyo wal uula midda hore labaduba fa andartukum waan idin digaya bini aadamu naar baan idin ka digaya taladda oo hurayso holcaysa la yaslaha naarta gali maayo illa al ashqa midka ugu nasiib xun adoomada mooyee alladii kaasoo kadaba beeniyay oo watawalla jeesaday wasayujannabuha naarta yaa laga fogeynayaa waa kaasi waa kii ku gubanayay galaye yaa ka fogaanay wasayujannabuha waxa laga dheereynayaa naarta sayujannabu wala dheereynayaa ha naarta waxa laga dheereynayaa
الأتقى مدك أقو عبس بدن الدومة إلهي مدك إسقو إلى بدن الذي كاسو يؤتي سيا ماله حوله سسيا يتزكى حاله إسقو ظاهرين إسقو ظاهرين وبخيل ماذا إسقو ظاهرين وحمانته إسقو ظاهرين وذنوبته إسقو ظاهرين أي حوله سبحنية والحال بو يعني حوله سسينية ما لأحد عدنا أيسن أسقنان عنده أكتيسة من نعمة وح أبال أو تجزى لقى أبال قدو أبال قدو هيو يسوي عدنا أيسن كلهين عدك عن كل ما شرته أو أبال قدي طيب إلا ابتغاء وجه ربي وجهي سرادين ورادين يموي وحكى الأمة بحنيه وحو وجهي ربي يرضاها إلهي أم رادين يسكر الأمة بحنيه ربي الأعلى يقول خلقي سكود سري ولا سوف يرضى رالبون النقون دوناوي مركو إلهي أتقو وحو كقنعو الرالي كو نقضى للسينية علماء مفسرين تين بدن وحي كليهن آيادني وحي كهل ليس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه صديق هذه الأمة أي كهل ليس قاروا يكسوا دكتبي إليه لكن يعني وحويان شك ملها عدة أقوه الرئيسي قليس إنه أبو بكريه محايا إلي سيدا النبي أحاديث فربضان كقصوغان نينكا النبي صلى الله عليه وسلم حوليه سكو قرب استاغي ورسول قول صلى الله عليه وسلم يعني مركي دادكو أي بينيين أبو بكر با الرميي حوليه سنة يقو قرب استاغي حولها أبو بكر صيئي أنفعين حولك لإما أنفعين مركو النبي صدقاء أمري حوليه سيبو وضا كياني ماشا عمر ولا ترتمي حولها النسكي ضو كياني ومانكو كهري دونوي markaasuu nabigu wuxuu yiri yaad uga soo tagtay markaasuu yiri yaani ilmahaagi wixii ilaahay baan uga soo tagay buu marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wax gooniyo Abu Bakar uu muxuu ahay uu nabigu siiyay oo gacan aan diinta uu baray ahayn kumuusan lahayn laakiin Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ardaa xoolihi zamaaninku nabiga rumeeyay isagana yaani wax way rag ninkii ugu horeeyay rumeeyay buu ahaa marka Khadiija laga reebo ragga isaga ugu horeeyay nabiga rumeeyay sallallahu alayhi wasallam هذا مع ذلك مالك قال لقب الله حوله سوسو وقرب تاجنا ونبي هو جريود صلى الله عليه وسلم مركا عد وصفا هي صفة آيات الشيء أبو بكر كم مضاني ما جرته صاص دراديد بمفسرين تبضن كودو حي مريان آياتنا إني كهالليسو أبو بكر كهالليس فعلا وح كم مضاني ما جرته وصفات كان إسقى آيات عد وجوه الرئيس كل ما بيسا وسيجنبها وحلق فوقين يا نار تأيدا الأتقى إسقى خاص كما أها لكن وحوي cid kasto sifaadkan iska laho dhan ba soo galaysa naarta waxa laga fogeynaya al atqa midka ugu cabsi badan isugu ilaalinta badan adoomada alladii kaasoo yu'tisiya maalahu xoolihiisa yatazakka isagoo isku daahirinay xooluhu waa dahaaro yaani sakada waajibka ha noqdeen ama sadaqada ha noqdeen ruuxana waa daahirinayaan xoolaha laga bixinayna way daahirinayaan wama li ahadin markuu xoolihiisa bixinayana cid abaal kule oo u abaal gudaya ma jirto waxa kala duwan ciidan gacan iyo abaal kugu lahay inaad wax siiso oo ku bilowdo iyo abaal lagu leeyahay iyo gacan hore lagu galay inaad ka jawaabayso way kala duwan yihiin labaduba waa fiican yihiin laakiin waxa ka sii fiican markaadan cidina ayna abaal kugu lahayn xoolihiisu bixinaya waa maali ahadin isagoo cidina ayna u sugnaanin cindahu aktiisa aysan ugu sugnaanin min nicmatin wax nicmo iyo abaal ah oo tujza laga abaal gudo nicmo iyo gacan laga abaal gudo isagoo cidina aysan ku lahayn in badan oo muslimiinta ragii la cadaabi jiray quraysh cadaabi jirtay oo adoomo ahaayo dad la liida ah isaga xoreeyay oo ka saaray adoonimadii ka saaro sababtiisa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda illa ibtighaa wajhi rabbigi wajigiisa raadin uu raadinay iyo doonid uu doonayo mooyee wax kale uma bixinin xoolihiis rabbigi al-a'la ugu sareeyay sareyntu wax weeye waa علو الذات إلهي ذاتدي سو خلقك وكبح سنتو عرشي وكسر علو القدر إلهي شرفتي سواس الرئيسة علو القهر الدومدي سوا كأذقي هو كأود بدنيا كل ويسوق ليسا ولا سوف يرضى الدون كاسر رالي ونقون دونايو مركو إلهي أتوغ أبا القد قنعيا أيو هلي دونا إن شاء الله تعالى سيداسي مركو معناه دو وحوي يمرتدى آية السورة دو وحوي لبدا تشيد بالك العديي mid walba meeshuu ku dambeyn doonana waa lagu sheegay adigaana khiyaar kale mid kaad mari lahayd aday ku taala faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur hada wabillahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam